meelaan mobilada ka chargeeysanaan laanahay xaafadihii mugdi toosaskii baa lacagtii naga dhameeyay luuq walboon mar chargeeyay meelaan ka gashanaan laanahay dhibaatooyin badan baan ku qabnaa maamulkii magaalada Qabar Bayax isaga oo council yahay ayuu haddana maanta aan fursad u waayay in xafiiskaygii in aan wax aan ku printing garaystay aan ka waayay waa xafiiskii dhannaay maamulka magaalada Qabar Bayax taa problemka inta leeg maxaa keenay waa leed la'aanta waxaan noogu daran haddaan nahay magaalada Qabar Bayax waa leedka ilaa 40 riyaal weey inta lagu tabeeyo marka laba gal helaya lacagta dil bixinaha laftigeeda marka laga soo gaaran leedka aad cabashadeedu waa taa weey xabada taleefanka waxaana laga qaadayaa soddon riyaal oo lagu dabeynaya marka qaarkoodna lagu dabeynayba waxa lagu leeyahay fiila lagu jiraayo waxa weeyaan meel aan gelin ma hayno oo meel aan ku gelin ma hayno marka taleefan la'aan taleefanka saacad walba iska degsay oo adeegida wixii dadku ku adeegan lahaa sida halokashti oo kale iyo birti oo kale waxa weeyaan dadku adeegyadii ku kala adeegan lahaa lagu kala adeeganayay ee wada deesan yihiin waxaan ka cabanaynaa xagga leedhkan ka cabanaynaa leedh la'aan ka jirta magaalada leedhku wuxuu maqan yahay tiradhan ilaa iyo ugu yaraan 5 habeen ayuu naga maqan yahay marka wax noo soo socdana ma aragno noo hagaajinayo wax noo ordi doona ma aragno meel ka aan garan mayno waxa weeyaan jinnadii aanu taleefanada ka dabaysanayna waa la kala laayahay dadku fiilo ugu jiraan marka maadaama fiilo dadku ugu jiraan waxaan leenahay leedhka laga hagaajiyo si ugu dhaqsaha badan cida waxa weeyaan ay qusayso sida xafiiska leedhka oo kale haddii dacwooto xafiiska leedhka tagtidna kula hadlayaan xabashada joogtay otraal la'aantan maxay ahayd xafiiska tagtid xafiiska qolidan joogtay xabashada joogtay wax kula hadlaya ma aha macnaayan waxa weeyaan leedhka de meesha ciladu ay ka jirto kuma sheegayaan marka waxaan leenahay leedhkan inta hoos loo galo ciladu way soo noqonaysaa walow ay eego xogaan naga yar hagaagsaneedo imika way soo noqotay sidii hore soo noqotay marka qaarkood rabadaantii hore oo kale bil bay naga maqnaa leedhku imikana xogaa sidii oo kale moodayna inuu wax weey u raagayo marka leedhkan laga hagaajiyo leedhka sidii loogu talagalaana loogu shido leedhka ugu daran haddaan nahay magaalada Qabar Bayax waa leedhku hadda muddo 3 xameena wax leedhoon haysanaa ma jiro taleefankana waxa lagu dabeeyaa 30 riyaal marka koobaad aan codsanayno haddaan nahay magaalada Qabar Bayax ma aragtay dadku ay ugu baahi badan yihiin waa leedhka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tay maxamed axmed waxaan ka cabanaynaa leedh la'aanta magaalada ka jirta muddo 5 habeen leedh maana arag marka leedh la'aanta leedhka waa in la hagaajiyo ka cabanaynaa in badan muddo badan imka toddobaad kama yara leedhku intuu jiray marka waxaan ka caban maamulka intay u xil saaranta waxaan u sheegaynaa dadka khuseeyaan in leedhka wax naga ka qabtaan mobiladii fiila la kale meel lagu tabay jinnadii macalway ku yar yihiin magaalada marka waxaan ka cabanaynaa cid ay qusayso inay si fiican loo soo gaaraan marka meel lagu waqtaysto ma jiro jinnadu aad bay noogu yar yihiin marka mobiladiina waa fiila lagu jiraa meesha wax laga tabeeyaba waa laba qaybood kaliya marka laga soo gaaran leedhka aad cabashadeedu waa taa weey marka dadka waxaan ka codsanaynaa cid qusayso leedhku inay aad buu noogu xun yahay masha Allah cid dhaqdhaqaaqana ma aragno marka cid khusayso si fiican noola soo gaaran leena 100% waxaana lagu tabeynayaa waa 30 ilaa 40 riyaal weey inta lagu tabeeyo marka laba gal helaya lacagta dil bixinaha laftigeeda in laga hadlo marka saasoo intaas ka codsanayna dhamaan cid khusayaan dad walba saasan sheegayna ugu daran haddaan nahay magaalada Qabar Bayax waa leedhku hadda muddo 3 xameena wax leedhoon haysanaa ma jiro taleefankana waxa lagu dabeeyaa 30 riyaal marka koobaad aan codsanayno haddaan nahay magaalada Qabar Bayax ma aragtay dadku ay ugu baahi badan yihiin waa leedhka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdikariim ku nool maamulka magaalada Qabar Bayax waxaanu ku jirnaa xaalad leedh la'aan ah habeenahan oo idil ma taqaanaayay waxaanan macnaha dhibaatooyin badan baan leedh la'aanta ku qabnaa waxaana ka mida meelaan mobilada ka chargeeysanaan laanahay xaafadihii mugdi toosaskii baa lacagtii naga dhameeyay luuq walboon mar chargeeyay meelaan ka gashanaan laanahay dhibaatooyin badan baan ku qabnaa gaar ahaan maamulka magaalada Qabar Bayax wax mishiinana dadka waa hore ugu dambeeyso Cabdullaahi Shafeec iyo Koosow kaliya haysta
magaalada markaa waa lagu dhiban yahay xabada taleefanka waxaana laga qaadayaa soddon real oo nalagu dabaynaya mararka qaarkoodna laguma dabaynayaba waxaa lagu leeyahay fiila lagu jiraayo waxa weeyaan meelaan gelina ma hayno oo meelaan ku gelina ma hayno marka taleefan la'aan baa taleefanka saacad walba iska degsay oo adeegii dee wixii dadku ku adeegan lahaa sida halokaashtii oo kale iyo birtii oo kale waxa weeyaan dadku adeegyadii ku kala adeegan lahaa oo lagu kala adeeganayay ay wada daysan yihiin marka waxaan leenahay xafiiska ay qusayso sida xafiiska leerka oo kale xafiisyaha kale sida xafiiska maayirka oo kale waxaan leenahay laga hagaajiyaan leenahay leedasha si fiican loogu shaqeeyaan leerka oo yuu naga demin martaba sidoo kale yana loo gelin martaba ka horeysa waxaan ku bilaabayaa salaanta islaamka maadaama nin islaam ahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacda salaan waxaan halkan aad uga salaamayaa TV-ga qaaliga ee fursaddan ii siiyay inaan dhibaatada maamulka magaalada Qabri Bayax ka jirta aan wax yar ka soo taabto dhinaca leerka bismillaahir rahmaanir rahiim maamulkii magaalada Qabri Bayax isaga oo council yahay ayuu haddana maanta aan fursad u waayay in xafiiskaygii IT-ga aniga oo u fadhiya xarunta dhexe in aan wax aan ku printing garaystay aan ka waayay waa xafiiskii dhannaayay maamulka magaalada Qabri Bayax taa problemka inta leeg maxaa keenay waa leed la'aanta inkasta oo uu 101 jeer uu ka hadlay maayirka magaalada injineer Khalid Maxamed Axmed Allah la garab galay waxa weeyaan 101 jeer uu ka hadlay isaga oo dardar galiyay in uu xafiiska isaga oo ina shaqadiisu hayn oo waxaan tahay heer federaal haddana wuxuu isku dayay in uu xafiiska uu ku dabagalo maadaama mas'uulkii yahay oo madaxa meel ka sareyso la taabtayna jirin marka hadda tusaalahan muddo at least ilaa 6 days or wax leedo electronic maanaan arag taleefankii haddii aad isticmaashid waxa laga yaabaa qof weyn oo hooyo ama waalida oo amal la'aan hayso oo 3 riyaal uu ku chargeystay una haysan inuu maanta hadduu soo dabaysay istiraado laga qaadayo 13 bir laga qaadayo 3 riyaal taas maxay tahay waa problem aad iyo aad u weyn oo haysata maamulka magaalada Qabri Bayax iyo nawaaxigeeda meelihii lamida sida daraadeed waxaan leenahay iska daa meelihii kare maanta aniga xafiiskaygii baan ka waayay waxaan ku printing garaysto mala leed marka waxaan ka codsanaynaa xafiiska ay khusayso hadduu heer federaal yahay iyo hadduu heer kilal yahayba annagu waxaan leenahay maayirka 101 jeer buu shirka ka dhaxadlay laakiin wax heer federaal oo constantly oo joogta kama hayno waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan hal noo soo gurmado ku xirnow lana wadaaga asxaabtaada afaaladaadu waa muhiim Dagara Media waa saaxiibka dadweynaha